Fanaanka weyn Tiger ayaa ku jira biyo kulul kadib markii saaxiibtiisa Cameron Swanson ay ku eedeysay inuu gacan u qaaday. Haddaba aan u guda galno mawduucana maanta, fadlan ku soo dhawaada channelkayga. Waa anigoo Cabdishakuur. In badan oo idinka mid ayaa iga codsanaya inaan ka soo hadlo xaaladda haysato fanaanka caanka ee Tiger iyo saaxiibtiisa Cameron Swanson. Horta koodii hore, haddii aadan garanaynin fanaankan rapperka Tiger, heeso badan ayuu qaaday. Midda ugu caansan kuwa horta fara badan waayo, aad bay u fara badan yihiin heesihiisa. Waxaana ka mid heestiisa Deep iyo Taste. Deep heestaas wuxuu la soo qaaday Nicki Minaj. Horta koodii horeeto full namekiisu waxa waaye Michael Ray Stevenson. Wuxuu ku dhashay Compton, California, November markay ahayd sanadka November 1989. Wuxuu ku koray ilaa uu ka gaarayo 12 sano meeshaaseeto. Ka hor inta uusan u dhaqaaqin Gardena, magaalo ku xigta meeshuu joogay markaas waagu yaraa. Waxaa dhalay maamo hooyadiis oo Vietnamese iyo aabihiis oo Jamaican baa dhalay Tiger. Tiger hooyadiis waxay ku dhalatay Vietnam, waxaana la dhahaa magaceeda Nguyen. Tiger waa fanaan caan heeso badan ayuu soo qaaday, ayuu ku luuqeeyay. Heesaas ugu caansan waxaa ka mid heesta hore nigu soo sheegay Deep oo uu la qaaday Nicki Minaj oo fanaanad dumar oo caan heesihiisa kale ee caanka waxaa ka mid Taste oo daawadeen in ka badan 100 milyan oo adduunka dacaladeeda kala joogaan. Hagaag waa garanay. Haddana aan ka hadalno saaxiibtiisa Cameron Swanson. Meeshay ka imaatay, imasee jirtaa, iyo taariikhdeeda, iyo maxay qabataa. Intaas dhan aan ka hadalno. Full namekeedu waxaa waaye Cameron Swanson. Waxaa dhalay aabaheeda American waaye iyo hooyadeedba. Waxayna dhalatay 25 January 1999. Da'deeduna tahay 22 sano jir. Cameron waa naqshadeeye, designer, fashion caan oo Mareykanka u dhalatay. Xidigtan waxay caan ka tahay Instagram-keeda, saameyn weyn ku leedahayna warbaahinta bulshada, waana haweeney ganacsato waxayna ka timid Atlanta, Georgia, Mareykanka. Cameron oo is shukaansanayeen Tiger ku dhawaad sanadkii horeeto 2020 ee bilaabeen shukaansigooda, ayaa ku eedeysay inuu geystay rabshado qoys, iyada oo fanaanka uu isbedelay bartamihii bishii October la soo dhaafay. Kadib markii Cameron ay ku eedeysay inuu dareen ahaan, maskaxiyan iyo jir ahaanba u geystay dhibaatooyin aad u fara badan. Cameron Swanson ayaa barteeda Instagram-ka soo dhigtay waji dhaawac iyo indho madow, yacni waji garaafaysan. Waxay ku eedeynaysay in Tiger uu gacan u qaaday ama wax uu ku dhuftay. Ay u badan yihiin badanaa dumar oo ay taageersan yihiin Cameron ayaa la arkay iyagoo ka hadlaya dhacdadii Tiger iyo Cameron. Dumarkaas ayaa waxay sheegeen in Tiger uu dhammaan falalkan ka bartay saaxiibkiisa Chris Brown oo yaqaano sida gacmaha kor loogu qaado haweenka ama gacan loogu qaado dumarka. Sida ogtiin iyo sheekadii aad soo maqasheen, Chris Brown iyo Rihanna wuxuu ku sameeyay. Marka waxay taagan yihiin dumarkaneeto oo Cameron Swanson dhinaceeda jiro. Waxay taagan yihiin Tiger waxaa baray arrintan dhan iyo dumar in gacan loo qaado Chris Brown oo saaxiibkiisa qof kasto saaxiibkiisa wuxuu yahay ee taagan yihiin. Waa hagaag. waa yahay asxaabteyda. Waa intaas macluumaadka aan maanta ka u hayo mawduucan ku saabsan Tiger, saaxiibtiisa iyo Cameron Swanson. Ilaa aan ka kulmi doono marka xigto, is ogaada oo iska warhaya. Waxaan ahaa sheekeeyihii muuqaalkan. Haddii aadan i ka siinin, waxaa laga yaabaa inaad i garanayso hadda oo sababtoo waan kuu sheekeeyay. Waa anigoo Cabdishakuur Xasan. Intaan mar kale ka kulmi doono waxaan idhahayaa macsalaamu. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Fadlan subscribe-ka naga ilowin. aad baad u mahadsantahay.